midowga Yurub ayaa sheegay warbixinada isa soo taraya ee ku saabsan ciidamada Eritrea inay si buuxda uga qayb qaadanayaan dagaalka ka socda gobolka Tigray inay walaac xoogan ku abuurtay xaaladda murugsan ee ka taagnayd gobolkaasina ay uga sii dari karto dagaalka inay ku soo biiraan ciidamada Eritrea. wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda, amniga iyo siyaasadda ahna madaxweyne ku-xigeenka golaha midowga Yurub Joseph Borrell dhinacyada dagaalamaya wuxuu uga baaqay miiska wadahadalka inay ku soo laabtaan iyagoo u danaynaya shacabka ay dagaaladu saameynayaan. dhowaan xoogaga Tigray waxay sheegeen ciidamada Eritrea dagaal ballaadhan inay ku soo qaadeen xadka ay la wadaagaan gobolka Tigrayda dagaallo xoogan ay halkaasi ka socdaan. afhayeenka fallaagada TPLF Getachew Reda wuxuu sheegay goobaha ay dagaaladu ka socdaan inay yihiin dhulka u dhexeeya webiga Takaze ilaa iyo Irob. dagaalkan ay qayb ka yihiin ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyaadka deegaanka Amxaarada. madaxda dowladda Ethiopia iyo Eritrea kama aysan jawaabin eedeymaha loo soo jeediyey, laakiin mas'uuliyiinta Eritrea waxay ku eedeeyeen ciidamada Tigray inay qorsheynayaan inay weeraro ku soo qaadaan gudaha Eritrea. Eritreana toddobaadkii hore waxay u yeertay ciidamadeeda kaydka oo ay da'doodu 55 jirka ka hooseyso si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka TPLF. khamiistii horena qaar badan oo ka mid ah ciidamada kaydka ee ku noolaa caasimadda Casmara ayaa ogeysiisyo la siiyey waxaana saacado gudahood loo qaaday jiidaha hore ee soodinta uu waddankaasi la wadaago gobolka Tigray ee Ethiopia, sida ay ilawareedyo ay u sheegeen idaacadda BBC laanteeda af Tigrayga. ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika Mike Hammer oo ku howlana u kala dabqaadidda dhinacyada dagaalamaya wuxuu sheegay dowladda Maraykanka inay og tahay ciidamada Eritrea in ay ka tallaabeen xadka gobolka Tigray ay la wadaagaan. qaramada midoobay ayaa dhankeeda maanta dhagaysanaysa warbixin ay dagaalka ka diyaariyeen khubaro xuquuqda aadanaha u qaabilsan, inkastoo ay dowladda Ethiopia warbixintaasi ay maalintii shalay ahayd ku tilmaantay mid ay waxba ka jirin. dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda ku dhowaad 2 sano oo dhiigga badan uu ku daatay ayaa la rumaysan yahay kumanaan qof inay ku dhinteen, malaayiinna ay ku barakaceen.